بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور بالجنالكين قعمة فران إيه قلبي صافية وإذن سو دوينا سومالي وين وان إذن سلامايا ملبود جوجتان مالي وناكسن. maanta mawduuceen wuxuu ku saabsan yahay qayb ka mid ah barashada sunta ee dadka sunta ah ee dhaqamadooda iyo dabeecadaha ay leeyihiin isay kula dhaqmayaan iyo sida aad ku aqoonsan kartid video walba video kaleente waxaan rajeynayaa inuu ka xiiso badnaado oo maalinba maxay ahayd sheeko cusub oo dadkaas iyo tilmaamooyin cusub aan idin keeno insha Allah biidnillahi alkariim. hadafka laga leeyahay wacyigelintaana waxay tahay dadku inay ka foojignaadaan dhibaatooyinka kusoo wajahaan oo maxay ahayd warmoog ay ka yihiin dadka qaar ama aanay ogeyn khatarta intee in la-eg ayay tahay inaad la noolaatid qof sun ah amba uu ku dhow yahay oo waalid ku yahay amba walaal uu ku yahay amba wiil adiga aad dhashay uu yahay amba saaxiib uu ku yahay intee in la-eg ayay tahay khatar oo adiga ay tahay inaad iska ilaalisid oo mar walba waxaa waaye taxadarkaaga iyo caqligaaga aad ku soconaysid. dabeecada waxaa jiro ay ka wada samayihiin dadka sunta ah oo nooc walbay ahaadaan hal dabeecad oo ay ka wada samayihiin aa jirto dadka sunta oo haddii aad qalad samaysid in qaladka adiga ay kugu soo gediyaan taas ool way ka wada samayihiin. haddii ay wax kaa haleeyaan oo adiga dulmane aad tahay in ayaga ay ciyaaraan doorka dulmanaha oo ay ooyaan oo ay qeeliyaan oo adiga naftirkaaga shaki uu kaa galo in qofkan adiga aad dulmisay oo asaga uu xaq leeyahay oo adiga aad gardaran tahay mararka qaar inay imaato in shaki uu kaa galo. marka waxyaabaha aad ku aqoonsan karto qofka sunta waxaa ka mid ah ka hor dadka horta waxaan ka hadlaynaa qayb ka mid ah haddii lamaanahaaga guurka ka hor uu yahay qofka sunta waxaad ogaanaysaa in xuduudaada uu soo gudbaayo gabar ha ahaato wiil ha ahaato. dabeecada ay leeyihiin dadka sunta waxaa ka mid ah in ayaga ay xuduudaha gudbaan khaasatan dadka narsistaha xuduudaada in ay galaan ay xaq u leeyihiin oo adiga aad tahay waxba aadan ahayn yacni wax qiimo leh oo agtiisa aad ka tahay qofkan wax asaga uu leeyahay oo kaleente oo xuduudaada si caadi u gudbayaan asaga tiisa mala gudbi karo qofka. dabeecadahaas dad ku aragtid aniga ma igu samayn kartid adiga waa kugu sameynayaa. waa qof narsisist ah. sunta way noocay badan tahay. xuduudaha ay gudbayaan maxaa waaye qofkan ani asaga amba ani ayada intaan isguursanin ka hor maxaa waaye xuduudaha ay gudbayaan. xuduudaha ay gudbayaan waxaa ka mid ah horta in ay baari karaan taleefankaaga ayagoon amar la-aan. qalad waaye taleefanka adiga aad leedahay inuu qof qabto uu baaro qalad waaye. in meel haddii aad degan tahay amar la-aan ay iska soo galaan aanay ku soo garaaceenin albaabka waxay aaminsan yihiin in ay xaq u leeyihiin ayay aaminsan yihiin laakiin ayaga ma ku samayn kartid. ayaga waxaa waaye way mudan yihiin laakiin adiga ma mudnid. tilmaamooyin ay bixinayaana jirto ay ku siinayaan laakiin dadka waxaa waaye ma fahmayaan. dadka in badan waa waxay u fahmeen wax qadar la dhahaa jirto sooma qofkaas haddii ay ku qorantahay inaad nolosha aad la wadaagtid gadaalaad ka fahmaysaa waxaad leedahay hadhow alla saano igu samaysay alla saano igu sameeyay guurka ka hor inaan ogaaday ahayd markaas inaan u sheegay ahayd inaan bartay ahayd inaan ka joog iraaday ahayd ama aan ka jooga ayay ahayd inuu qofkii uu dhahaayo ayaa jirto. tan kaleente waqtiga guurka haddii guur aad ku ballantaa dhaqsi waa in guurka u dhacaa. dhaqsi ma ku siinayo fursad aad kusoo fikirtid iyo waxaas iyo ma ku siinayo. hadday gabar tahay saas hadda ha laysguursado waa laysguursanaya qofka meesha qofka caadiga ah oo adiga ku jecel oo si dhab ah ku jecel oo ku siinayo fursad aad kusoo fikirtid uu ku leeyahay abaayo soo fikir waqtigay jeceshaa inaan isguursano soo fikir waqti hebel maan ka dhiganaa may yani degdegtaas aanay jirin. laakiin qofkan waxaa waaye maxaa la dhahaa intay birta kulushahay ma ahayd birta intay kulushaa la jaraa saas camal geesa la-aad intay kulalihiin la jaraa camal mahmaha soomaalida jirta sooma idrab maadaama xadiid alxaami ay dhaan carabta af soomaaligaan ku waay marka geesa la-aad intay kulalihiin la jaraa isla markii qofkii inuu ku dhaho hadda isguursanayna guurka degdeg laakiin qofka caadiga ah waa inuu waqti ku siiyo waqti dheer weliba uu ku dhaho kasoo fikir adoo degan ha degdegeen inuu ku dhaho qofkii
وقف كان مايا وإن محياتي دكتك وهتريميسا تنقل أنت كوز سمين دتك صنت عمرك أي نولشاد كجران نوع أي دونان هذا درجة أي دونان نولشاد كجران والد ولال ويل صاحب قف شقاء كل أنت نوع أي دونان هذا وحيابها عادي جودها أتكدريميسد جودها ودريميسا dareen waxaa jira bini aadanka oo ilaahay siiyay oo gudihiisa uu ku dareemayo dareenkaas oo arkaayo waxa indhaha aadan ku arkeen dareen ayaa jira oo indhaha aan ahayn oo waxa indhaha adiga ku arkaysid aan ahayn oo ka aragti fog indhaha ka aragti fog waa basiirada soo aragtida gudaha ee qalbiga dareenkaaga gudaha qofka sunta ah dadka sunta hadii aad la socotid dareenkaaga wuxuu dareemayaa in wax ay yihiin in ay wax siiyeen ayuu dareemaya hadana ma garan kartid mararka qaar maxaa waay meesha qaladka uu ka socdo dareen noocaas oo kaleenta waa ku imaanaya marka dadka sunta noloshaada ay ku jiraan xagee wax ka qaldan yihiin xagee layga haysta maxaa ka qaldan xiriirkan ina isdhaysid hadana aadan toos u abaari karin oo aadan dhihi karin meeshaas ay sarta ka qoransan tahay aadan dhihi karin hadaba maxay tahay tusaale ay waxaan ku siinaa ad kaga badbaadaysid sirta ad kaga badbaadaysid maxay tahay hadii qof ad kaga shaki qabtid shaki haduu ka galo in qofkan uu yahay qof sun ah buug iyo qalin mar walba buug iyo qalin bini aadanka waxa waay maskaxdiisa daciif waay maskaxda bini aadanka waxa waay daciif waay buug iyo qalin inaad haysatid aad qortid maxaa qofkan adiga ku qasbayo إن أساسترات مركز اسكو دعدان مركو هذا الكل أنكو عجبين إسلام مركز وحاو كلهاي قر وسي يعني وحيابه هدي أي كل مان أي أوبتان بوجا مركز فيرست أدويست سبب محي هي تقف كان أد عذر دار وسميست أدواتت إن أديك أد خطر قصوغنتا أدواتت ونفط هذا أد إلى شتت ونفط هذا محي أد حفظت إلى هنا حفتي وحي الشرع بوجي قالين كمركز مهم واي هاي بني آدم كمسكحدين ضعيف ومرك قار وحواي وإلو بس مرك خر محل درينك وقت قاسيت محوك لها قف كان ما محي كل هذه وإن تقرتت ويل يجور بنوع دونها هذا وإن تقرتت قفك لأنه القف صنع نارسيستا قاصدا مركز لأنه شاي حتى وحكوا دعاية حنونه جرأة يكوا دعاية حنونه جرأة هانت يكوا دعاية تتأفيرستت نلشاد هذه كجران دتك الصنطة xanuunadaas waxa kamid ah caloosha qaybta sare oo ku xanuunayso waayo waxaad la qaysaa waxyaabo xanuunada bini aadanka in badan oo jirkeena ku dhaco waxa waaye waxay door ku leeyihiin nolosheen haddaad fiirsid xanuun walba oo kugu dhacayo waxa waa asbaab koos gareenayo waxbay door ku leeyihiin marka waxaad arkaysaa xanuunada caloosha caloosh qaybta sare oo mararka qaar aad maleynayso inay bararan tahay ay ku xanuunayso oo cuntadii ay ku dhibeyso xanuunadaas ku dhacay waxaad dareemaysaa qofkii in maxay ahayd garbaha meeshaan ay xanuunayso waxa kale inta xanuunayo mararka qaar wadnihii in uu garaacmayo mararka qaar oo nuxuus noqonayo madax xanuun cudur waxaa jira oo maxay ahayd culays markii lagu saaro culays lagu saaro oo bini aadanka oo ku dhacay jir ahaan oo soo baxaya jiro marka qofka sunta ee markaad la nooshahay waxa waaye waxaad qaadanaysaa suntiisa aad qaadanaysaa soo waayo waxyaabo badan oo aan ku qalmin ayaa dhacay oo adigana aad u sameynaysid cudurdaar oo aad laqaysid marka haddii aad la nooshahay cuduro jir ahaaneed xataa waxa waaye bay leeyihiin oo kuwa kugu dhacaya haddii aad ka baxid xataa way soo baxayaan cuduradaas laakiin wax weyn ma ahan wax adiga aad ka daawoobi kartid waay wax gacantaada aad isku daaweyn kartid waay xataa mararka qaar ee dhakhtar oo mubaahnid haddii aad isku dareentid xanuunada qaastan kan caloosha oo kaleenta neef weyn qaado neeftaasiti oksijiinka gaar ilaa maskaxda si fiican neefta qaado jiid haddana soo daa hadda neefta qaado neef weyn qaado caloosha waa inay dhaqaaqdaa markaad neefta aad qaadanaysid haddana markaad soo daynaysid sidaas oo kaleente gudaha waa inaad qaadid neef xoog leh waxyaabaa la isku daaweeya ay kamid tahay xataa markii aad dareentid welwel neef qaadashadaas aad kugu fiican tahay marka waxyaabo badan oo waxaa jira dadka sunta ah ay ka wada siman yihiin oo akhlaaq darada
akhlaaq darada way ka wada sameynayeen all dadka sunta ah oo inay kugu xadgudbi karaan oo adiga aadan xadgudbi karin in maxay ahayd waqtigay doonaan albaabkaaga soo garaaci karaan ay weliba khasabtaa inaad furaysid haddii kaa waayaan sidaa tahay ciqaab inay ku ciqaabayaan marka aad la nooshahay oo aad tahay dulmanahooda mar walba ay kaa waayaan sida adiga ayaga ay kaa rabaan in aad la kulmaysid ciqaab mar walba waxaa la kulmaysaa ciqaaba ku taalo maanta oo dhan waxaa waaye qorshahooda adiga waay maxay kugu sameynayaan maxay yani aday kugu mashquulsan yihiin adiga ayay kugu mashquulsan yihiin waxaa waaye daneyntoodii oo dhan adigaad noqotay maaha daneen oo jeceel maaha daneen oo waxaa waaye oo haysasho waay daneen oo waxaa waaye oo dhibaateen waa maaha daneen oo daacad oo min allahi ka imaatay daneynta hadday tahay daneen qurux badan waa wax aada u fiican waay xataa daneynta quruxda badan markii qofka laga badbadiyo ma fiicno sooma qofka hadduu kaa badbadinayo qof waa dhibsanaya qofka kaleenta bini aadanka waxaa waay anaga waxyaaba badan oo waxaa jirta faham u baahan oo ay tahay inaan fahano ay tahay jirto marka taas sabab ka mid ah sababaha dadka ayagoo qof jecel looga cararaayo oo aada weliba u jecel ay daw cararayaan daneynta faraha badan waaye taas mawduuc kaleenta waaye laakiin teena dadka sunta aan usoo laabano waxay ka wada mid yihiin akhlaaq darada in akhlaaqdii akhlaaq dara ay kugula dhaqmayaan oo maxay aanay ku ixtiraameynin aanay ilaalineynin xuduudaadii aanay ilaalineynin dareenkaaga marnaba muhiim uma aha qofka sunta ah muhiim u ah tiisa ayaa muhiim u ah dabeecadaha ay leeyihiin oo haddii aad rabto inaad baratid qaasatan dadka narsistaha marka ay sheekeynayaan faanayaan faankooda waxaa ka mid ah ayaga waxay jecel yihiin inay weyn yihiin sooma inay weyn yihiin ay jecel yihiin ay sareeyaan ay jecel yihiin marka waxay soo qaadanayaan tusaalooyin mar walba haddii ay la kulmaan qof masalan mas-uul ah oo kaleente qof caan ah oo kale adduunka laga yaqaan oo kaleente inay kuusoo qaataan maanta oo dhan aniga qof hebelaa la kulmay aniga qof hebelaayaa la kulmay aniga waxyaabaha ay ku faanaan ayay lamid tahay oo aad ay u buunbuuninayaan ayay ka mid tahay in ay la kulmeen hebel inay la kulmeen heblaayo يعني وحوين يلا تعميش دتك عادي يعني هدي أدل كل أنت عادي واي ولا كل مكرت عادتك قلنا أدل كل أنت صام خف كاسيتي هدي أدل كل أنت نرش هذا مهم ما إنه وحكة بدلايو أما أي وحكة بدليس مهم لكن أصلا ما يوقوق فانا ما طلعنا فان كيسة وسوق لنايا dabeecada hooda waxaa ka mid ah dadka sunta aad ku baran kartid tan gabdhaha khaasatan saaxiiba haddii aad leedahay oo gabdhaha saaxiibada mid ka mid ah ay tahay kuwa sunta ah gabdhaha way nagu badan yihiin gabdhaha runta markii laga hadlaayo khaasatan mujtamaceena aad ay u badan yihiin markaad u fiirsatid markii kulan oo jiro kulan saaxiibadeed oo jiro kaleenta haddii aad casuuntid gabdha saaxiibada ah haddii ay ku jirto mid sun ah oo narsista ah cuntadaada inay wax ka sheegto daruuri waay cuntada aad ku casuuntay weliba wax ceeb inay u hesho daruuri waay ay ka sheegto waay haddii aanay ka helin wax ceeb oo maasha allah tabaaraka allah hataa qof si wanaagsan ay u diyaariya casuumadaha oo wax macaan iyo wax wanaagsan diyaariya aad tahay ceebta ay ku yeelayso waxaa ka mid ah heblaayo markayn casuuntay saanay samaysay soo inay ku tusinayso heblaayo ayaa adiga kaa fiican heblaayo ayaa kaas yani weliba dadka hortooda inay kugu liidayso muhiimadda waxaa waaye in qofka ay niyad jabiyaan waxyaaba ay ka sameeyeen ay kamid tahay dadka sunta in qofka ay niyad jabiyaan laakiin adiga ha u ogolaanin haddii ay ku dhahdo saaxiibtaa heblaayo casuumadeeda saan ma ahayn sheeg in heblaayo adiga aadan ahayn oo adiga aad tahay oo casuumadan adiga ay ku matalayso oo adiga aad ku qanacsan tahay oo dadkoo dhanna ay raali ka yihiin dadkana weydiiye weliba hortooda ku weydiiye maxaa ka qaldan dheh yani ha aamusin xaq adiga aad leedahay waayo haddii aadan daneen ku sameynin waxa waaye caadi waa wax barbalee male laakiin tusi in ay tahay xaq adiga aad leedahay inaadan lagu soo xadgudbin marka waxyaabaha ay jecel yihiin ka mid ah in ay kusoo qaataan tusaalooyin ay kusoo qaataan ka mid ah waxay ka wada sameyn yihiin in ay ku niyad jabiyaan masalan haddii seygaaga uu yahay amba xaaskaaga ay tahay in ay ku dhahaan ma qurux badnid masalan haddii aad tahay qof buuran oo kaleente aad meesha lagu sameeyo sportiga maxay tahay saa u eg tahay muraayad ma isku fiirsid miya yani si fool xun xataa lamaanahaaga wiil iyo gabarba haddii ay yihiin kuwa maxay ahaatay cayiran oo cayirkina iskridaan ay tahay si qurux badan oo aad ugu sheegtid aa jirta soo maa qofka lamaanahaaga ayaga maya fursad ay kugu helayaan
maxay ma aadid meeshaas dadka ay aadaan hebel soo egyahay arag niman kale intaa lagu tusinaa gabdha wiilkan saasoo kale inta bilaay arag say u eg tahay ma isdanaysid ma isdaryeeshid gabar yaraa tahay maxay tahay yacni adiga dhan waxaad dareemaysaa qofkan inuu cadow uu yahay ama cadow ay tahay waa dareemaysaa waa cadaanaya aada u cadaanaya markii laisla noolaado qofka waa soo bixinaya shaqsiyadiisa oo shabaqa lagu dhigto dabeecadaha kaleenta oo dadka narsiistaha ay leeyihiin oo in badan dadka ay shaki dadka banaanka ay kuleeyihiin ninkan amba naagtan waa qof saqi ah oo gacan furan adigana aanay ku ahayn dabeecadaas way leeyihiin saqi maxay ugu yihiin dadka banaanka su-aashaasiyta isweydiinay mudan tahay waxay saqi ay ugu yihiin dadka banaanka waxay tahay wax u bixinayaan waxay u bixinayaan dadka banaanka ay wax u siinayaan waxay tahay in la amaano amaan ma aha wax liajli laah maslaxaday wax u bixiyaan bixin oo daneen yacni bixin oo dan ay ka leeyihiin waxa ay bixinayaan waa wax ay dan ka leeyihiin waa marka dadka banaanka waxay ugu gacan furan yihiin waxaa waaye dadka banaanka waxay ugu gacan furan yihiin waxaa waaye amaanay ka helayaan soo ha lagu amaano ha lagaa sheego ha lagu dhaho qofkii mudnaa ay tahay in wixii la siiyana aan la siineynin oo maxay ay tahay bakhiil loo yahay dabeecadaasiytii narsisisto dhan way leeyihiin haddii xaaskaaga ay tahay haddii seegaaga uu yahay waxaa waaye ma ku siinayaan shilin ma ku siinayaan laakiin dadka banaanka way siinayaan dabeecadaasiytina way leeyihiin marka waa ku mahadsan tahay daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga ah ayaad siisay waxaa la soo gaaray waqtigii aan dhamay lahayn cajaladeena maanta intaas kasoo koobaya videogan waxay intaa ku kulmi doona waxaa idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ciao